munaasabadan waxaa lagu soo dhaweynaya gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Mawlid Xuseen Guhaad. xafladaasi waxaa ka qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee Soomaalida Finland. intii lagu guda jiray xafladaasi waxa uu gudoomiyuhu ka codsaday jaaliyadda Soomaalida ee Finland inay ka qayb qaataan abaarta baahsan ee Soomaaliya haatan haysa, isagoo ka codsaday in aan arintaasi laga seexan. haddaba warbixintaasi iyo waliba dadkii kala qayb galay ee jaaliyadda Soomaalida ee Finland waxaa kamid ahaa sida tan. مولد وكمل هذا جود غير فيلان سيدا كاركا وغسو شقي دلدا مانتا لاتلمامي سوماليا سيئيتو اما دلدا جود جالية دمارت سوماليا فيلان انتو فيلان جوغين عمو كشقين على لباتن سنة جدا لباتن كاسا سنة جدا رجل أساس كده وكلها جود قبل كبحي ماركتي كسو شقيين وكجري إلهي أجل كيسي ماركتي حكسي وقت قاسو قليل haddii aan nahay jaaliyadda Jubaland State ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee waddanka Finland ku nool ee ka soo jeeda Jubaland State of Soomaaliya, sharaf gaar ah ayay noo tahay inaan ka soo qayb galno barnaamijka soo dhaweynta ah ee lagu soo dhaweynayo Senator Mawlid Xuseen Guhaad oo laga soo doortay kana soo jeeda Jubaland State of Soomaaliya. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa sida aan soo qayb gashay xafladda aan ku soo dhaweynayno walaalkeen mudane Mawlid Xuseen Guhaad oo ka mid ahaa odayaasha xaafadda haddana alxamdulillah oo nooga qayb galay golaha sare ee shacabka federaalka oo guuriyo hambali aan leenahay. aan lagu dhacay inuu calankii dhulka looga dhacay oo dowlad weynay oo ciidan weynay oo dalkeedii xuduud waayay bad iyo beri baan xuduud loo xirnay. waxaan ku jawaabay iyadoo inay ila joogtaan mooda waxaan ku jawaabay annagoo kol baan calan lahay laga cabsoodaa ee caalamkii miyaa yiri dadkii caayin baa yiri. xildhibaanka gudoomiyaha labaad ah ee aqalka sare mudane Mawlid Xuseen Guhaad. Mawlid gudoomiye waxaan ku leeyahay ku soo dhawow degmadaadii faanta dadkaagii jaaliyadaadii Soomaaliyeed oo gacmaha haysato oo halkan joogta maanta. Finland ama Suomi shacabkeeda waxaa lagu yaqaanaa 92 markii Baydhabo iyo Soomaaliya la isku qaranayay dowladaha ugu horeeyay ee gurmaday. waxaana ayagana maasay ku dirayaa dowladda iyo shacabka reer Finland. maanta waxaa taagan abaar dad iyo dunyaba baabiisay. waxaan leeyahay dowladaha ugu horeeya noqda ee u gurmada ummadda Soomaaliyeed ee hadid marina oo la ii sheegay oo aan ka warqabaa marti ma ahin haddaan ka maqanahay dadka waan ka warqabaa inaad bilowdeen ay socoto dadaal min waqooyiga Finland ilaa Helsinki oo badda ah. dadaalkaas sii labanlaaba oo weliba yaa lala daahin. محمد بشير ومحمد تلفزيون كعالمي Carlson TV Helsinki Finland.